gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada dalka haya ee kulmiye maxamed xaaji yuusuf waabeeye ayaa maanta shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Hargeysa waxa uu digniin u diray xubnaha ka tirsan xisbiga oo uu sheegay iyagoo xisbiga ay ka tirsan yihiin haddana dhaleecayn u soo jeediya isagoo sheegay inay ka saari doonaan xisbiga iyo xubnimadii uu hayay isagoo arrinka ka hadlayna waxa uu yiri sida la socoteen dhowr bilood ka hor waxa aanu xisbiga kulmiye uu qabsaday shirkiisii golaha dhexe waxa xilka xayuubi lagu sameeyay oo awgeed gudoomiye ku-xigeenkii labaad ee cabdiraxmaan cabdiqaadir sababta xilka lagaga qaaday waxay ahayd isaga oo xisbigii ka tirsan inuu eedayn sameeyey xeerkaasi markaa muu ahayn special law loo samaystay cabdiraxmaan cabdiqaadir oo loogu talagalay isaga oon in xilka lagaga qaado waa mid loogu talagalay xeerkaas iyo sharcigaas cabdiraxmaan cabdiqaadir lagu ashax mariyey waa mid anigana ay qaban karaa oo qof kastoo ama hogaana ama golo dhexa ama guddi fulineed qaban karaa waa mid guddoomiyaha xisbiga qaban kara Muuse Bixi oo qodob qaban karaa waa mid Maxamed Kaahin qaban karaa waa mid cid kastoo xilka haysta xisbiga oo hogaana ama guddi fulineed qaban karaa maadaama uu sharcigaasi jiray oo guddoomiye ku-xigeenkii labaad la mariyey inta sidaasoo kale yeeshay dabacadda yeeshana waa la marinayaa waana digniintani maanta xeerarka xisbigaan u adeegsanayna geesta kalena isagoo ka hadlaya xildhibaanada iyo cid kasta oo ka tirsan xisbiga siday u toosin karaan xukuumadda iyo xisbiga ay ka tirsan yihiin waxa uu yiri waxa muhiimaddu ay tahay ninka mudane golaha wakiilada la soo doortay ee waliba xisbul xaakim habka uu maray saxaafadda ee uu tagay intuu saxaafad tagay uu fariintiisii bariyay saxba soo khalad baa la oran karaa isagoo haysta fursadaha inuu madaxweynaha kala hadlo arrinta uu doonayo isagoo maxkamadda sare kala hadli kara isagoo oo madaxweyne ku-xigeen kala hadli kara isagoo oo gudoomiyaha xisbiga kala hadli kara isagoo taliyaasha ciidamada booliiska cid walba militariga kala hadli kara inuu saxaafadda tago anu waxaan u arkaa qof xilkiisii iyo shaqada habkii uu gudan lahaa seegay sababtoo markaan intaa yeelo ee aan jaraa'idka tagay ee aan warbaahinta tagay qofka laba qodob baa la gudboon maadaama xisbigii uu ka tirsanaa uu dhaliilayo oo uu warbaahinta ka dhaliilayo oo uu si public u dhaliilaya horta marka hore waa markaa iscasilaa qofkaasi markaa waa inuu iscasilaa digniintan uu maanta u diray gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye ayaa waxa ay salka ku haysaa iyadoo ay maalmihii ugu dambeeyey xildhibaanada ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland isla markaana ka soo baxay xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye